بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، وصلى الله على نبيه ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، وحلقة يوم فضل اللباد إنه أوترق لي مناسبة يا بندقة iyo xafladaha la qabanaya sanad kastaba mawliidka meesha ay diinta kaga jiraan. xalaqadii hore waxaanu ka soo hadalnay hal muqaddimiyo mas'alo hor u dhaca, caawana mid kale aynu ka hadli doonaa haddii alla yiraahdo. qaybaha dambe oo ilaa 2 ama 3 fadhi gaari doona haddii alla yiraahdo, isla labada habeen ee soo socotay habeen dambiye habeenka ka dambeeyaan ka hadli doonaa. sabab iyo munaasabad darteed sheekhana Sheekh Maxamed Umal oo duruuf safariya soo gashay, ardaduna qar cashirkii habeenada dambe ay ku xirnaayeen, baa waxay dantu keentay in labada habeen ee soo socota kitaabkii uu wadi u gabagabeeyo. haddaba ragga ardada ee ku xirnaa si aan fursad u siino baan xalaqaadkii mawliidka ku saabsanaa labada habeen ee soo socota u soo guurin doonaa haddii alla yiraahdo. cashirkii fiqhiga ahaa maadaama sheekhana Sheekh Shariif Tawiil laftiisu waxoogay safar gaabana soo gashay, habeenada dambe ee wiiga ka dhiman baa darsigii fiqhiga ahaa isna uu socon doonaayo waqti dhimo dheeraada inagama dhumi doono. inta waa baraarujin iyo tanbiih hor u dhaca, maadaama masalada mawliidku waxaynu soo niri waxa laga hadlaya ma sunna mise waa bidca ay mas'alo taagan tahay. waxaynu ka soo hadalnay bidcadu maxay tahay, muxuuse yahay mowqifka inagaga aadan oo ah in cimriga inta la nool yahay diinta laga digo lagalana dagaalamo bidcada. taa horeynu uga soo hadalnay. masalada labaad ee caawa ka hadlayna waxaa weeye, maadaama dadka samaynayaay maxabbo iyo jacayl nabi baan u samaynaynaa sala allahu calayhi waalihi wasalam ay leeyihiin, inaynu ka hadalno lafteeda maxabbada nabiga iyo xiriirka ama calaaqada ay la yeelan karta qaabka nabiga loo jeclaanayo iyo astaamaha muuqaalka jacaylka nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam, sida uu sunnada u waafaqayo iyo sida ay bidcada lafteedu u geli karto. halkaas waxaynu uga gudbaynaa haddii caawa aynu ka gaarno bandhig iyo damaashaadka mawliidku goormuu bilowday, yaase bilaabay. taa haddaynu wax ka gaarno, xalaqada labaad waxaan uga gudbi doonaa mawliidka maxaa la akhriyaa sidiisaba, munaasabadan mawliidka maxaa dhaca. labadaba waa dul mari doonaa, qasaa'idka la qaado iyo kutubta la akhriyo, iyo intaa waxa dheer oo qaarkiin indhihiinna aad ku aragteen oo qaabka loo dabaaldegaa. wixii ka dambeeya waxaynu u gudbi doonaa insha allahu tacaala xukumka sharciga ee ku aadan. caawa waxaan ka hadlaynaa qaybta hore, waan ku bilaabaynaa. hadduu waqti inooga soo helo taariikh baan u gudbi doonaaye, maxabbada nabiga ee mawliidkan loo qabanayo sala allahu calayh wasalam, maalmahana loo dabaaldegayo, in makaanada iyo miisaanka sharciga ay ku leedahay iyo qaabka nabiga loo jeclaanayo iyo xuduudda ay leedahay nabiga jacaylkiisu sala allahu calayh wasalam, inaynu caawa wax ka tilmaanno. waxaanan ka hadli doonaa insha allahu tacaala 4 masalaan ka hadli doonaa. masalada koobaad, waxyaabaha keenaya nabiga in la jeclaado iyo makaanada muhiimadda ay diinta ka leedahay. masalada waxaan ka tilmaami doonaa. masalada labaad, waxyaabaha muuqanaya ama astaamaha lagu garanayo ee saxda ee sharciga waafaqsan in nabi maxamed la jeclaado sala allahu calayh waalihi wasalam. masalada saddexaad, waxaan ka hadli doonaa sidee baad uga shaqayn kartaa in jacaylka nabiga aada u qabto calayhi salaatu wasalaam uu bato ama heerkii la rabay uu gaaro. masalada afraad aan ku gabagabayn doono jacaylka nabiga
dadna waa ka gaabiyeen dadna waa ka badbadiyeen oo baabulbidac bay galeen afarta masalan insha allahu tacaala si kooban marka hore uga hadli doonaa masalada hore haddaan ku soo laabtay waxaa weeye sababta iyo munaasabadda nabiga jacaylkiisa waxaa keenaya iyo makaanada iyo meesha muhiimadda ay kaga jirta diinta waxaanu leenahay nabiga sal allahu alayh wasalam labadaa haddaynu isku darno nabiga waxyaabo badan baynu u jeclaanaynaa marka koowaad waxaanu u jeclaanaynaa waayo allah baa jecel allihii aadamahan abuuray ee intaan haysanaba ina siiyey noloshu ay kow ka tahayoo goorta nafta lagaa qaada dee dhagxanta iyo gidaarka iyo alwaaxda aadan waxba doonin markaa qofku mayd noqdo ee naftu ka baxdo noloshana uu waayo isaga iyo degeedka iyo gidaarka iyo dhagaxa wax isma dhaamaan haddii uu dhaqaaq noqoto waa in la gediyo waa in la riixo waxba jacis kama yidhaahdo waxba ma kala garto waxba ma kala oga wax ma maqla wax ma arko jamaadaadka waxaan kaga duwannahay nolosha iyo nafta naflayda badanna waxaan kaga duwannahay waxa inoo labeeyo nicmaanka ugu waaweyn ka mid a caqliga iyo garashada xooluhu waa nool yihiin shimbiruhu waa nool yihiin bad iyo barriba naflay baa jirta innaga laynoo sakhiray waxaynu cunno waxaynu iibsanno waxaynu daawanno waxaynu gaadiid ka dhiganno sakhara lakum maa fi samaawaati wamaa fi lardi ah innaga oo yar yara baa geelay intaa la eg wiil yar gafuurka intuu xarig kaga xiroo qabto buu jiidi 3 xuloodna waa ku dhufanayaa waxa aan ku kala duwannahay caqligan iyo garashadan maaraynta iyo maamulka way saa darteed qofkii isagoo nool markuu waasho xoolaha wax ma dhaamo maryihii la isku asturayay intuu iska dhigo mudh iska dhigo isagoo qaawan bannaanka ordaya wixii dan iyo maslaxad la kala garan jiray dan iyo maslaxad ma yaqaan ilmuhu intuu yar yahayna isagoon caqli lahayn waxaa loogu sabraa uu caqliyaysan doonaa waana sababta qofku markuu waayeelay caqliga uu xoogay dhinmo inuu durba dhinta loo jeclaado waayo rajo inuu soo caqliyaystaan laga qabin maadaama aan rajo laga qabin isaga dhanba waalidna ha noqdee culays iyo mushkilad buu noqon ilmaha yarkaana oo ka dhib badan waalidka qaylada kaadida xaarka mushkiladda dabka ilaalinta kaba dhib badan waxaa loogu faraxsan yahay oo raalli loogu yahoon dhimasho loola rabin soo caqliyaysanaya markuu kugu waashay ree qofkuna rajo waxaad isbitaal tago jiinka wax ku akhriya tago markaa ka soo quusato meelaha dadka waalan ee isbitaallada madaari iyo meelaha naga geeya waa laga samri ilaahay ha idin fududeeyo dadka waa loo tacsiyeyn waxaad wax weyn ku tahay caqliga maamulka iyo maaraynta iyo wax kala garashada meel la kaa soo imanaya rabbi baa ku siiyey inta kale xubnaha iyo kaabayaasha allihii ku siiyey shukriga iyo nicmada iyo abaalka kaa mudnaa baa nabiga jecel sala allahu alayh wasalam ilaahay wuxuu jecel yahay marka inaad jeclaataay wax meesha ku jiroon la inkiri karin wey intaasoo abaal uu kuu galay alla ilaahay waxa uu jecel yahay in la jeclaado nabigana calayhi salaatu wasalaam baa saxaabada buu meel fagaaraa kula hadlay saxaabada dad buu jecel yahay baa la yidhi oo marar baa la weydiiyeyoo dadka yaad ugu jeceshahay baa la yidhi markaasuu caaisho tilmaamay waxaa la yidhi haweenka kumaana weydiin haweenka ma aha raggaan ku weydiinay markaasuu yidhi aabbaheed abubakar wey radia allahu canhu ardaa wuxuu ka gaaray jacaylkii nabiga abubakar jeclaa in abubakar iyo cumar isku dhaceen uu yidhi abubakar baa gar daraa abubakar intuu soo nawir cumar waa kugu qaldameen iyo cafi cumar waa xanaaqsan yidhi horna dhaaf kuna cafin meeradna dhaaf yidhi cumar abubakar markay kala tageen baa cumar baa dib ka shallaayay oo yidhi ninka abubakar ahaa ha kaa qaldaman laakiin walaalow raalli ahaa waan iscafin uu ku yidhi wallaahi diidadaadii sax ma ahayn uu ka soo daba tegey xaggu ka raadiyey guriga waa ka waayey meelablu ka de war abubakar yaarka xaggu usii socday raadkii isagoo daba socda ba abubakar oo nabiga la fadhiyo kusoo baxay abubakar nabiga ergiya dacwo ugu tago ninka cumar ah intaan ku qaldamay baan iscafinaa niri buu diiday
aan iscafinadii abubakar maxaad u diiday cumar meel khatari ka turi gaadhay markuu soo baxay nabigu waa ku xanaaqayba intuu wejigu bedelmay buu yihi waryaa heedhe cumarow hal antum taarikuu lisaaxibi ninkan miyay deenaysaan hadal xataa kama sugin ilaa abubakar intuu jilba joogsay rasuulka anaa ka gardaraa ninkan anaa ka gardaraa ninkan anaa ku qaldamay bal xaaladii si waxoogay u dejiyo abubakarkii halkaa ka joogay iyo usaama oo nabigu aad u jeclaa isagii abi zayd ibn xaarisa aad u jeclaan jiro maalin ay xaalada adkaatay la yidhi arrintaa nabiga iyo erga ugu tegi kara waxaa la yidhi usaamuun baa u tegi kara oo isagii aabihii u jeclaa ninkaan nimaan ahayn oo maanta ku dhiiran kara inugu ergaya arrintan ma jiro wixii oo dhan buu isugu yeedhay wuxuu yidhi war dhegaysta ilaahay baa aniga khaliil uu jecel yahay iga dhigtay anna ilaahay waxaan uga bari noqonayaa mid kastoo idinka midoo khaliil iyo waday ii dhow ahaa wadaynimadiisa allaan uga bari noqday waayo allah i jeclaaday jacaylka ilaahayna mid kale inaan ku dhex daroon ku lamaaneeyo ma doonayo halkaasuu ilaahay ka joogay inta ilaahay ambiyada uu soo diray agtiisa midka ugu weyn ee ugu jecel yahay weeye calaa asaxi alaqwaali wa qiila ibraahiimu calayhi salaam sababta horta waa u jeclaanaynaayo rabbigii intaa nicamkana siiyey baa doortay rabbi baa jeclaaday innagana jacaylkeenna waa mudan yahay masalada koowaad wey arrin labaad baa intaa keliya ma aha ilaahi subxana wa tacaala qur-aankiisa wuxuu inoogu sheegay nabigu waa ina jecel yahay waa inoo naxariis badan yahay wax kastoo ina dhibayuu ka murugoodaayuu ka walwalaa wax kastoo wax inoo fududaynayana waa jecel yahay sunnada nabiguna waa inoo fasirtay ilaahay waa inoo duuduubo wuxuu yidhi laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim waxaa idiinba rasuul idinkeedin ka midoo bini aadama malaa'igna ma aha jinna ma aha waxaan la aqoonoo kalena ma aha waa idinka waa aadame waa ina hebel hebel oo aad taqaanaan laakiin casiizun calayhi maa canidtum waxaa ku adag wixii idin dhibaya oo xataa sharaa'ic iyo axkaam marka loo waxyoodo ay culays iyo dhib idinku tahay way dhibi israa walmicraaj baa la sii qaaday fowqa 7 samaawaad baa 50 salaadood tukan la yidhi muusuu la kulmoo yidhi anaa hortaa soo tijaabiyey arrintan waa dhib dib buu isu majiray wuxuu ilaahi ummaddayda 50 salaadood ma kari karaan ka fududee 45 ka dhig baa la yidhi dhaxduu ka noqday ilaahu 45 way ku badan tahay 40 baa la yidhi dhaxduu ka jiireeyey ilaa 5 uu soo gaarsiiyey 5tiiba weliba wuxuu dabcay inuu noqdo markaasuu xishooday 5tan lafteeda mar baa damac ku soo dhacay inuu yidhi ilaahu 5 lafteedu way badan tahay ummaddayda ka fududee intaa wuxuu u samaynayaa casiizun calayhi maa canidtum amay kari waayaan habeen hore ka dhaweyta waxaan soo sheegnay jumcadii hore salaatu taraawiix baa masaajidii la soo buuxiyey dadkii buu fiiriyey ama ilaahay ku waajibiyaa buu yidhi waraa kala taga kala dareera guryihiina ku tukada innii khashiitu an tufrada calaykum waajib in laydinkaga dhigaan ka baqay fatacjazuu canha marka aad kari weydaan oo kadib aad halaagsantaan haddaba intii laydinku waajibin lahaa kala carara muxuu uga baqayaa isagu intaa ka badan buu tukan jiray ilaa lugihiisu ay dildilaacaan buu taagnaan jiray salaadan la tukanayeyna weligii ma daynin hal habeen baa la isku haystaa inuu daayey oo leylatu musdalifa markii carafo maalintii laga soo noqday aha habeenkaasaa la isku hayaa ma tukaday salaatuleyl mise ma tukan mararka qaarkood markuu taagnaa waa intuu fadhiisto baa markay 50 aayadood meelaha u dhiman tahay buu istaagi jiray innagana qiyaamkeena dhanba 50 ma dhan aayadood waxay saas tahay ummaddu uga ba'ayay ama lagu waajibiyaa ay kari waayaan cadayga markuu ka hadlaya muxuu leeyahay lawlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaka cinda kulli wuduu ummadda inay dhibtaan ka baqayaan salaada cisho habeenuu soo daaho waqti dambe tukayay muxuu yidhi innahu la waqtuhaa lawlaa an ashuqa calaa ummatii ummaddayda inay dhib ku noqoto haddaana ka baqaynin salaada cishaha dib dhigo ilaa bartamaha habeenkii ku dhaweeyaan dhihi lahaa ilaahay sooma dhihin marka casiizun calayhi maa canidtum wixii idin dhibaya way ku adagta marar badan buu waxyiga yimid iyo jibriil iyo hadal ku celiyaayo war waxaan ummaddu ma kari karto
ilaahu ummadu sidan ma kari karto intaasoo idiin doodaa tilmaanta labaad ee uu leeyahay waxaa weeye xariisun calaykum waa idinku dadaalaa saad wax u noqon lahaydeen saad cizi iyo sharaf ku gaari lahaydeen saad diintiinnu u dhammaystirmi lahayd buu idinku dadaalaa oo qaarkiin oo soo xaydxaytay oo cibaadaan u soo go-aynaa leh buu yidhahda hooy ma kari kartid ee ka daa saddexdii nin ee gurigiisa timid ee cibaadadiisa yaraysatay ee qaarkoodna yidhi anu guursan maayo qaarna habeen seexan maayo qaarna maalin afuri maayo yidhi intuu yeelay buu wuxuu yidhi waxaa socon maayo anaa ilaahay idinku cabsi badan waan seexan waana soo toosi waa haweenna waan guursan waana soomi waana afuri sidaa yeela cabdullahi bin camr caasna maalin buu yimid rasuulka ilaahay oo inaan soomaan raba nin dhallinyaro oo xoog badanna waanahay markaasuu wuxuu yidhi waxaad samaysaa bishii 3 maalmood ka soon markaasuu yidhi ka badan baan awoodaa wuxuu yidhi maalinna soon 2 afur wuxuu yidhi ka badan baan awoodaa wuxuu yidhi maalinna soon maalinna afur wuxuu yidhi ka khayr badan baan awoodaa wax ka khayr badan ma jiro yidhi hadal buu ku yidhi cabdullahi bin camrirow inay cimrigaaga dheeraado aad gaartaa laga yaabaa inay xayaatada kugu dheeraataa laga yaabaa oo aad kari weydo markaasuu wuxuu dhihi jiray markuu waa yeelay alla nabiga taladiisa haddaan yeeli lahaa taladii nabiga haddaan yeeli lahaa ii fiicnaan lahayda qur-aanku wuxuu yidhi waxaan rabaa habeen kasta inaan dhammeeyo markaasuu yidhi bishiiba mar dhammee markaasuu yidhi ka badan baan awoodaa wuxuu yidhi 10kii beriba mar dhammee wuxuu yidhi ka badan baan awoodaa 7kiiba mar dhammee ka badan baan awoodaa 3dii beri mar dhammee ka khayr badan iga dhig maba jirto wax ka khayr badan marka intaa uu yiri kadib buu leeyahay inaad daayo cimriga kugu dheeraada laga yaabaa arrimahaas intaas wuxuu u dadaalayaa camalka waxaad awoodaan sameeya war camalka yare labadii kala ka fiican ummadan wuxuu u dadaali jiray bil mu'miniina raufur rahiim mu'miniinta aad buu u turi jiray aad buu u naxariis badnaa ilaahay baa tilmaamo fabima rahmatin min allah linta lahum waxaad dabacsanaantii rifqiga ku yeelatay waa naxariis ilaahay laakiin haddaad qalqalabsano adayg iyo guulguul iyo handadaad iyo cabsiin umada ku dhaqi lahayd adoo nabi ah laga kala yaacina lagu wada nici lahaa oo la dhihi lahaa inkaaro ku dhacdaygan yaana dhaafiya adoo nabi baa tahay waxyi baad u wadaa laakiin rifqi iyo naxariis haday ka weydo ummadu ilaahu diintiisa iyo islaamkiisana ma rabiya yaana dhaafiyo baystaag ummadu waligaaba quraan akhri xadiis ku akhri ahkaam sharci aan dabaqida dheh naxariis ilaahay oo socoto aha saadartad bilaa nabiga kuwa magacaabay wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin in naxariisan la jeclaan xageed ku aragtay nabi ilaahay oo ku naxariisanaya oo naxariistaada loo soo diray oo culaysko dhan kaaga baaya oo takaaliiftii sharciga rabbigii mararka qaad ku noqonayo ilaahu umada waxaan ka fududee ilaahay suu kugu dadaalayo inaad jeclaatay mudanta inaan u jeclaana arintaana waa mudan yahay nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa kale oo kamid ah arintaas oo jeclaanay nabiga alayhi salaam wuxuu habeeniyo maalin waqtigiisa cimrigiisa ku dhumiyay oo dhib kasta u maray suu wax inoo bari lahaa markaasuu wax kastaba ina baray ilaa uu yiri laqad taraktukum ala mithli albayda maalin cad dharaar oo kale tan idinkaga tagay layluha ka nahaariha diin habeen iyo maalin isku mid ah waa dunyadu haday qoraxdu dhacdo nalkuna damo waa la hagabsadaa diinta ahkaamteeda laakiin korontada haday tagto ahkaamtii diinta mugdi ma gasho ayaduna waa caday xadiidkuna waa cadiya adigu inaad bara weyda ma ahane diintii aad taqiinay qorax baa dhacday iyo koronta tagtay miyay kaaga madoobaan may indhahan baa wax arki waaye ilayska nuurka qalbigu wax walba waa arkaa bal mararka qaarkood diintuba inaan qoraxna jirin iftiin korontana uu damabay ku fiican tahayba markii rabbiga aad la munaajoonayso ee rabbiga caabudayso meelaan iftiin lahayn bay ku fiican tahay meeshaan iftiinka lahayn habeenkii markay tahay wax cibaadada iyo salaadii loo faray shanqarku yaraan qayladiisa waxan ku dami waxa qayleeyay hareeraha oo dhan way seexan wax ku waswaasin iyo wax ku mashquulin iyo wax jaba ku soo gaari ba yaraan si fiican bad rabbiga ula munaajoon kartaa marka
waxaad leedahay baad akhrii macnihiisa fiirin kartaa haddaad garanayso marka diintu leyluha ka nahaariha saxaabada qaar inay ku jeeseesaan bay damceen wax kastoo fiicnaa haddii la xumeeyo ama ereyga si xun loo dhigo ma xumaado asmaada iyo cibaaraadka la qorana waxa xaqiiqadee wanaagsan ma aha inay kaa caydhiyaan haddii malabkii la yidhaahdaa la yidhi malab waa malab soma fi erey magac fiican maaha haddii aan ku idhahda mantag shinni weeye minaad ka carartaa ogow malabku waa mantag shinni waa ka yidhahdaan qayu zanaabiri laakiin labada magac baa kale ah wixii wanaagsanaa haddii si xun lagugu dhigo diintaada inaad ka cararta maaha wax bilowdayna maaha saxaabada nin kamida loo yimid wa salmaan alfarisi radi allahu canhu ardaahu waxyaaba badanna taariikhda nin soo maray ahaa markaasaa waxaa la yidhi haye nabigiina waxa walba waa idin barayaa hadalka jees baa loo yidhi ogow nabigiina wax walba waa idin baray xataa musqusha saad u fadhiisanaysaan buu idinka sheekeeyaa soo maaha diintaa markaa la duraya ogow diin musqulo iyo saxaro ka sheekaynaysa wey baa hadalka si dadban in loo yidhahda la rabaa muslim maaha dadka weydiinaya isagu laakiin tii hadalka qaabka loo yidhi wax kama soo qaadin markaasuu yidhi nacam haa weliba saan u fadhiisanayn una baray nabigu dadaalkiisii waxaa ka mid ahaa iska daa wax waaweyn iyo diin iyo adduunye musqusha markaad gasho saad u fadhiisanaya meeshaad u jeedin baa jeesan baa lagu baray iyo saad isaga tiri lahayd ma malaynaysaa nabigu intuu ina baro musqul aad gashay saadkaadiiyo saxara isaga tiri lahayd aad u fadhiisan lahayd ee dhinaca u jeedsan lahayd in wax kaloo waaweyn oo aakhare iyo adduun faa'iido noo uu naga dayn maya wax walba waa ina soo gaarsiiyey wax walbana waa laydin baray layna baray mushkiladdu maxay tahay innagu adna inaanan baranin wey innagu inaynan baranin wey waxaa la yidhi laqad callamakum nabiyukum kulla shayin xata alkhiraa'a xataa sida loo xaaro idin baray baa xaar buu xataa idinka sheekeeyey isagu marka ninkan ujeeddadiisa yar duritaanka ahayd wax kama soo qaad markaasuu yidhi ajal haa callamanaa haddaana saddex dhagax ka yar inaana ku istijaysanin buuna baray isaga tirin markaa geediya dhagax la isaga tirayo qibladana aanaan u qaabilin xaarka xoolaha iyo wax lamida aanaan isaga tirin buu nabiguna baray uri sal ly slam wata iyadoo faahfaahsan xataa marka maadaama nabig alay slam in badan cimrigiisii iyo noloshiisii ku bixiyey suu liibaanteenna labada daarood noo bari lahaa inaan jeclaana waa mudan yahay sala allahu alayh alih wasalam wuxuu kaloo u mudan yahay khasaa'is iyo waxyaabo uu khalqiga inta kale kaga fadilan yahay buu leeyahay wixii waxa inta kale ka fiicanna waa la jeclaadaa wixii sidiisaba u fiican fiicidiisaa loo jeclaadaa nabigu alayh slat slam khasaa'is farabadaan oo kutub laga qoray baa ilaahay siiyey wa innaka la calaa khuluqin cadiimin baa la yidhi nabig alay slam waa kii lahaa ucطiitu khamsan lam yucطahunna axadun qablii min alambiyaai axadun min alambiyaai qablii shan aan nabigu horreeye la siiyey aan la siin baa la siiyey aniga waxyaabo badan baa ilaahay baaba ku gaar yeelay oo dadkiisa ka fadilay oo maqaamun dadku gaari karin gaarsiiyey adduunyada jannadana darajada ugu sarraysa siiyey khasaa'istiiyo ammaantiisa markaad aragto in la jeclaado waaya in la jeclaado waaya gaaladiiba waxay qorayaan boqolkii nin ee ugu fadli badnayd adduunka taariikhda bini aadamka ugu fiicnayd baa ninkii gaalka ee maraykankaa markuu qoray number 1 buu nabi maxamed ka dhigay sal ly slam oo gaalkiiba hadduu qirayo boqolkii adduunka ugu ficneed 1 inuu ka ahaa adiga muslimkaa xaggee joogtaa marka waxaa kaloon u jeclaanaynaa jacaylkiisaa waajiba oo jacaylkiisaa cibaado ah oo isaga jacaylkiisa la'aantii baan islaamnimo jiraynin oo iimaan baan jiraynin oo jannaan la gelaynin asalka caqiidada iyo tawxiidkay ka mid tahay markaa islaamaysa laa ilaaha ila allahu muxammadun rasuulu llaahi adoo necab haddaad afka ka tiraada islaamnimadu ka ansixi mayso waa inaad jacayl iyo niyad u haysaa qadar asaasi oo waajib oo fardu cayn ana way leedahay qof kasta laga doonayo aakhirkana waxaa lagaa rabaa diin ahaan aabbaha iyo hooyada iyo awowyada iyo ilmahaaga iyo inta aad isnolol wadaagteen ay isqabtaan iyo in allaalay intay kula dhalatee walaalo ahaa adduunyihii hanti waxaad leedahay iyo nebi maxamed haddii la isbarbar dhiga sal ly slam iyo nebi maxamed aad ka jeclaato
hadduu lagu yidhahda kala dooro intani gam ha baxda aad tiraahdo ilahay sooma dhihin qul in kaana aabaa'ukum wa abnaa'ukum wa ikhwaanukum wa aswaajukum wa cashiiratukum wa amwaalun iqtaraftumuuha wa tijaaratun takshawna kasaadaha wa masaakinu tardawnaha axabba ilaykum min allaahi wa rasuulih hadday aabbayowgin iyo ilmaha dhasheen iyo walaalihiin xaasaskiinna qaraabadiinna xoolo aad shaqaysateen ganacsi khasaare aad uga baqaysaan guryo aad ugu qanacsan tihiin oo degan tihiin ood leedihiin haddii aad ka jeclaataan oo idinkala weynaadaan allah iyo rasuulkiisa iyo dariiqiisana aad ku jihaadaan intaasoo dhan allah iyo rasuulkiisa inay kaala weynaato lama ogola maxabadu marka laba darajo weeye wujuubkeedu qaar waa fardu cayn waa asaaskii tawxiidku ku asaxayay wey qadarkaa la-aantii islaamnimada ma asaxdo qadarna waa aayaddan kan ay sheegtayoo naftaada xataa inaad ka jeclaataay waa qaarka kamaalul iimaankaa wey ilahi subxana wa tacala wuxuuna yidhi annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim nabigu isagaa ka mudan mu'miniinta naftooda oo meeshan haddii la yidhaahda naftaadiiyo ta nabi maxamed waa taada inaad khatarta horgelisa wey yaa baaqi noqon isagoo ha dambeeyo khubayb markay nimankii reer maka a qabteen intii la qabtay loo dhiibay reer maka ragu ghaswatu bedri qoorta u caseeyena loo dilayey baa fagaarihii lagu daldalayay marka la soo istaajiyey baa waxaa la yidhi haadha khubayb oo ma jeclaan lahayd in lagu sii daayo oo booskaaga maxamed la soo geliyo sala allahu alayh wasalam nimankii reer maka wey ogow markaasuu wuxuu yidhi taa iska daa anoo halkan ku jira isagoo gurigiisa joogo qodax inay muddo maana jeclaadeen idinku in la keeno oo la dilaad ka hadlaysaane aniga anoo lay dilayo dilkayga kuma badasheen nebi maxamed qodaxa muddo maalinkii xudaybiya heshiiska la gelayana nimankii reer maka waxay la yaabeen qaarkood markay yimaadeen saxaabadu si nabi u xurmaan u jecel arkeen waxay yidhahdeen weligayo nimay dadkiisu u jecel yihiin sida maxamed dadkiisu u jecel yihiin maanaan arag hadduu hadlo shib jabaq agtiisa kama yeerto wax sameeya hadduu yidhaahdo lama kala haro duuduub baa loo aadayaa fariista hadduu yidhahdo nin taagnaan maayo hadduu biyo ismarmaryo dhulka ku dhici maayaan xaka hadduu iska tufaata dhexda laga dafayaa bay yidhahdeen weligayaba tan oo kale maana arag saasaa la rabaa markaa jacaylka nabiga sal alla alayh alay wasalam sida loo jecel yahay ninka soo gelay waa inuu taabtaa dareemaa walidaalika nabiga jacaylkiisa heerkaa la gaadhsiiyee dambe waa min baabi nawaafil oo lagu kala darajo dheeraado waxaana tusaya cumar radi allahu canhu baa nabigu u yimid nabigoo jacaylkiisu ka hadlay wuxuuna yidhi laa yuuminu axadukum xataa akuuna axaba ilayhi min nafsihi wa waalidihi wاnnaasi ajmaciin iimaanka qofkiin ma rumayn macnaa kaamil ma noqonin wey cumar baa nabigu iyo rasuulka ilaahay wuxuu yidhi wax kastaba adaan kaa jeclaa marka tayda laga reebo tayda marka laga reebo adaan kuugu jeclaayo markaasuu yidhi weli maada gaarin ilaa xataa taadu ay iga dabamarto cumar dib uu isugu noqdayoo go-aan kale uu soo gaaray wuxuu yidhi bas xataa tayda adaan kaa jeclahay haddaad haysaa baa la yidhi meesha la rabay marka hore gaal baa tay lama dhihin ogow waayo kamaalkii weeye kamaalulmaxabadii wey asaaskeedana waa fardu cayn oo iimaankay ka mid tahay kamaalkeedana waa taas waxaa lagaa rabaa marka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inaad naftaada ku furato ood maalkaaga ku furato oo isaga difaaciisu uu ka muhiimsanaado taada iyo naftaada iyo reer iyo ilmo difaacooda bal waxaa layna gaarsiiyey adoo salaad ku jira haddii nebi maxamed kuu yeer alay salaam salaadda waad la hadli kaana jabi mayso maalin buu saxaabi u yimid citbaan ibni malik la yidhaahdo gurigiisu uu yimidoo yaa citbaano buu yidhi isna salaad buu ku jiray salaaddii buu boobsiiyeyoo uma jawaabin markaasuu nabi wuxuu yidhi markaan kuu yeeray maxaad ii ajiibi weyday rasuulka ilahi salaad baan ku jiray buui waa cudur daartay ogow markaasuu nabigu wuxuu yidhi miyaadan maqal alam tasma qawla allaahi idaa dacaakum limaa yuxyiikum yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum
وحد النورين أي هذه اللي يدين كيوري أجيب سمارك نبي عسى وحوت المام يسوي صلاة كتير إنه أجيب رسولك صلى الله عليه وسلم بالغربي الكاس على الغربي ولذلك وحال دون إياه سادرت أنا أتشعلات النبي عليه السلام شعيل كيسون ومقامك كأجارو تاسو مسألة كوبات ما عنكم موتين كرا النبي أنا أتشعل عليه السلام أما قفك عنكم جران كرا النبي وتشعله صلى الله عليه وسلم وحي وانا أكسنه نوالله شيكتا لكن نكو وحكا استوى شيكتا معها أدوكنا ساد اسمه دمت هذي واسدا لغو يقان هذا أدوكو يسوها يستطن أخياره دبيعد معاني سوها يستطو dadkuna ku yaqaanaan nin geed ku xidho horka eriya dabakeeri midna aan ogolayn ka tahay adigoo nin aad soo haysato aad u dabeecad fiican hadaa nin caaqil oo dhaki ay soo haysato dadkuna ay ku yaqaanaan kana kan waxa ma kala ogay keebata soo ma dhacdo marar badan nin isu haysta aan wax si fiican u yaqaano dadkuna ay u yaqaanaan kan waa iska yeelyaalahay iska keenkanay wax ma garanayo soo ma badna nin caaqil isu haysto doqon loo yaqaan nin fiican isu haysto nin xun loo yaqaan waa badan tahay marka adigu maxad isku miisaami kartaa astaamaha qofkana lagu kala saaraa ee dadku ay kugu miisaamayaan inaad nabiga jeceshahay inaad ogaato way miisaankan ka hadlayna waa miisaanka sharciga ah miisaanku waa miisaanka sharciga ah cilmiga iyo shariicada aqoon sheegashadeeda iyo adduunyo iyo diinba ninkii sheegta waana qaadnaayo nin khatar aan ahay yiraahdo ma macnaheedu waa ninkii camalkeedii laga arka Soomaa ninkii halka dhakhtar ka furto ee yiraahdo cudurrada takhasus baan leeyahay waan daweeyaa soo in laga arko cudurradii inuu daweeyay oo yaqaan ma hadduu boor weyn iyo xayeysiis weyn samaysto waxana uu san aqoon oo markii loo tago waxba laga dheefi waayo aan wixii dhakhtar lagu aqoon jiray laga waayo mamay ka been loo weeyay sida khaldan baadhow lagu dhihi waxaad sheegata ma hadaba shariicadeenu astaama waxay samaysay in laga helo la doonayo adna aad isku miisaamayso dadkana lagu miisaamayo astaamaha ko baan dhowr ama madaahirul mahabba waxa la yiraahdaa dhowr astaamood ka tilmaamayna ko waxaan leenahay jacaylka nabi sallallahu alayhi wasallam waa in jidkiisa la raacaa kowka caadada muhibbiinta nin kastoo wax jecel qofka aad jeceshahay waa lagu daydaa waana la raacaa dhalinteenu markay jecelaadeen niman fanaaniin ah dharkoodii bay xirtaan Soomaa sidoodina waa u socdeen ninkii Rambo jecel ninkii ciyaartoy fulaan waa jecel ninkii fanaanka hebel jecel ninkii feeriyahanka hebel jecel sidoo u labistaa qaarkii waxoogay xanuunka miskaha ka qabay ama wagdaha laha kuwii jeclaaday qonfay isu wada yeelan Soomaal arag qaarna fooyo aragnay si hebel isu weekaysinay war maxaa u sameeyay marka tiraado wallahi ninka waa jeclahay noo kule waa ka helaano kuwii kooxaha taageerayay bal fiirsa kooxaha dhalinyaradeena ciyaartooyga adduunka iyo bahashan soo baxday nin walba kooxda uu taageersan yahay funaanadeedu xidhaa Soomaa okay haddaan kooxdan taageersanahay oo jeclahay kuwa ka soo horjeeda funaanadooda xidha ka war haddaan nabiga jeceshahay diinta sunnadiisina ku tumata ka waranyada waxaa innal muhibba liman yuhibbu muti'u nigu jecel yahay waa raaca jacaylkaagu hadduu dhab yahay oo kooxdan jeceshahay sideeda aad samayn iyagaad raaci haddii nin siyaasi aad jeceshahay oo maanta isliimu imanaya la yiraahdo ma ka maqnaan fagaaraha oo kari kara laakiin haddii la yiraahdo sunnadii nabiga halka lagu dhaqmaya oo jeceshahay kana dhaqaaqdo maxaa halka ka muuqanaya waxaan leenahay astaanta koobaad ee in laga helo ay tahay waa inaad u degdegtaa kuna dadaashaa raacitaanka hadyigiisa iyo sunnadiisa sababtoo waxaad rumaysan tahay dariiq la raaco waxa ugu qiimo badankiisa qof lagu daydana isaga ugu fiican inta ninbanin isku matalana isaga ugu jecla haddaad ku darta laakiin waxba kaga dayan maayo war eraygaaga iyo dhaqankaagu waa kala duwan yihiin eraygaaga iyo dhaqankaagu waa kala duwan yihiin
innaga hadda xaraga badan baa inagu soo kordhaysa soo maa waxaan gaarnay ninku jecel yahay ninku iyo filinku jecel yahay isagoon aqoonin inuu turjumo nin baa filin hinti buu daawanayaa saasuu yiri maanta dhan ku leeyahay haddii aad afintiga miyaa taqaanaa tiraada wuxuu ku leeyahay maya laakiin actionkiisu buu ka helay si u raacraacayay luqadu noqotay marka nin al-muhibba liman yuhibbu muti'u wa takoobaad nabi maxamed ma jeceshay calayhi salaam waa in raacitaanka ku dayashiisa laga helo waa jeceshay labiskiisii labiso oo tibihiisu kuwaagi isku day inaad u ekaysiin karto oo salaadaada salaadiisii inaad u ekaysiisa ku dadaal oo wuxuu necbaan jiray iska ilaalin jiray iska ilaali waa hadday kaa dhab tahay wey laakiin haddaad tiraahda markii aan waxa kaloo dhan joogana qoladaan jeclahay waan isku shabahi waan isu ekaysiin laakiin nabiga waan jeclahay afkaan ka jeclahay uurka laakiin waa yar diidan yahay waa dhici kartaa waxaad afka ka diidan tahay uurka ka jeceshayna waa dhici karaa saa darteed mutaabacadiisu waana halka ugu khatarsan wey innaga mushkiladayna haysata waxaa weeye maxabba aan mutaabaco lahayn oon raacitaan lahayn oon ku dayasho lahayn haddaad sunnadiisii waa bidca tiraahdo oo kaalay dariiqiisii aan raacna aad ka dido oo wuxuu diidi jira oo dhan aad kula fiicnaadaan wixii isaga la fiicnaana aad ka cararto ood astaamihii muuqaalkiisa u ekaayee sunnadiisa aad ceebayso haddana waa jeclahay aad tiraahdo nasiib darro wey waxaa lagaa rabaa warkii aad tihi waan jeclahay ha kaa muuqdo dharkaaga ha ka muuqdo socodkaaga ha ka muuqdo dhaqankaaga ha ka muuqdo wixii lagu yidhahdaa waxaa nabigu ma jeclayn daa wixii lagu yidhahdaa wuu jeclaana u degdo oo ku carar saasaa lagaa doonayaa saxaabadu waxay leeyihiin maalmaha ka nabi salaam baa raashinna loo keenay nooc khudaartii saarayd ka mid ah buu nabigu jeclaan jiray kii buu qaatay saxaabigu wuxuu leeyahay maalinkaa laga bilaabo baalkaa meeshaan ku arka waan qaadqaadanay maanan aqoon jirin oo ma jeclaan jirin laakiin nabigooba qaadqaadanaya haddaan arkay waaban jeclaaday bui waaban la qabsadayoo waxaan ku sanay qabatin baan ku noqday markaan raashinka soo fadhiisto horta isagii baan ka dhex daydayaa buu yidhi maxaa sababa nabigaa jeclaa sal allahu alayh wasalam saasaa lagaa doonayaa astaanta labaad xuskiisa inaad badiso wey oo magaciisa aad badiso ood ilaahay ku caabudo nabiga inaad badiso magaciisa iyo salligiisa nabigana sal alay slam ubay ibni kacb baa u yimid wuxuu rasuulka ilaahayow markuu nabigu wacdiyey oo qiyaamada iyo waxyaabaha dhacaya iyo uu ku waaniyey wuxuu yihi rasuulka ilaahayow inii ukhiru salaata calayk aad baan kugu salliyaa fakam ajcalu laka min salaatii inta in la-eg baan kaa siiyaa salaadayda habeenkii markaan soo kaceen tukanayo aad baan kugu salliyaa boqolkiiba intee baan waktigayga cibaadadee salaatuleylkaygaa aan salligaaga siiyaa markaasuu nabig wuxu uhi maa shiita intii aad doonto markaasuu yidhi alrubuc 4 meelood meel boqolkiiba 25 ma ka dhigaa wuxuu yidhi intaad doonto haddaad ka sii badisana kuu khayr badan markaasuu wuxuu yidhi 3 meelood nus ma ka dhigaa riwaayadka qaarkood waxay leeyihiin 3 meelood meel thuluth ma ka dhigaa boqolkiiba 33 markaasuu yidhi haddaad doonto laakiin haddaad ka badisana kuu fiican markaasuu yidhi nus ma ka dhigaa boqolkiiba 50 waktiga salligaaga ma ku dhameeyaa markaasuu yidhi haddaad doonto ka badisana kuu fiican wuxuu yidhi 3 meelood 2 ma ka dhigaa markaasuu yidhi haddaad doonto haddaad ka badisana kuu fiican kaga sii fiican markaasuu yidhi waktigoo dhanba ma geliyaa marka xilligii habeenkaan soo kacay oo dhan salli nabi ma ka wada dhigaa markaasuu nabig alay slam wuxuu yidhi markaas idan tukfaa hamak wa yukfaru laka dambuka hamiga iyo murugadana waa lagaa qaadi dembigana waa lagu dhaafisa haddaad yeesho oo adigu waxaad cibaado samaynayso adduunyadana hamiga in lagaa qaado aakharana dembigaaga la dhaafo waxaan maa daydays salligiisa badiyo haddiiba dembigiina lagaaga dhaafi hamigiina lagaaga qaadi intaad rabtayba weeye meel kaleba inaad aadda maaha haddii salligiisa aad maqasho magaciisa maqashana ku salli oo isagaaba yidhi albakiilu man dukirtu cindahu falam yusalli calay ninka bakaylka waxaa way runta ah nin magacayga intuu maqlay salligayga isagu sallin waayey sala allahu alayh ali wasalam
وهذا حولك عجمة بحيان وقتك عجمة بحيان كم الداليسد هذا ضمت هذا وطا صلي كرت معك ودي لي لكن واسيد وصلي صلي عبادة أنت عليك إن الله ينبرين معها صحابتي سيدا لو يجري واسمعين وأنا كسلين شرين صلي قلفتي سوى عبادة وإنه كيه رسول قالوا متابعة والنبي محسن الذي سياد رعده والنبي يقول كصلي على يري صحابته مركي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سودكتي سيوصليان بيقرن وايد ما ينندهن سيدي لقوا مناطان سمين من مسكح الإنسان كهلو مرنا حق وجهي مرنا تشيري طلعت بانصاري مرنا قد يتوب بان كل عين ما يندهن مرنا ويبان دبالسين مرنا بدل مخورسين ما دهن رسول كوي ما دهن وحي رسول كلاه وحنا على أمرين أنكو وصلنا يا السلام بان الله السلام توان قرني فكيف نصلي عليك هلك الصحابة ومركي إليه وحد كجراتي وحي فهن سنايين نبيك كصلي عليه الصلاة والسلام إن أباهين إن الله براسي وصلين لهاين إن المسألة ذو هاين أذو صاد دون تيسغسلي إنه سياب الله مرة وصلنا يوم مركا قراءة المولد كآخرنا بان هالكل جيدا صلاة دي إنك مولد كالله خاصي إنت السنة رسال كل يهيم بان مري دونا صلاة الله ملاحات كواكب على أحمد خير من ركبان نجائب ما قال يصيرتين يرير كان ما يقنن ورك نقاب بوكو صعود وحكي قرن معي طيب وحكى له أستامها كمده النبي عليه السلام تعيل كيساه إن هذا بدن كنت تامته وتشعلان الله إن محمد مرء أدركت صلى الله عليه وسلم إله من أركيان بدنا إني كاجرت وحتى تمني وأنت كليا معها إن أدجرت بتلو ما أنت هدين لو يراهدو لبا كلا دورو عرور حاسس حول بعض هذا حولها جي عروت هذه الريرها كمان نقبل لقدقي نبي محمد نوالو توسي هالمر بعيش الله صاري لكن بشرط إن حولها النقل لقدقه وين أظهر لكم نقول له وتكتش على الله حولها إن الرير كان ينق هذا إلى هالمر ونندها يا إيسارة هلك تمني جاوا وينو جاروي النبي صلى الله عليه وسلم وحوش يا مركة من أشد أمتي حبا لي ومضى إذا كوا يقول البدن وحاكمده ناس يكونون من بعدي ضد شيء إذا إيمان دونون يسوع قارن يود أحدهم لو رآني بأهله وماله متكون وحقوق قدن لها حوله سير ريه صورن أركت إذا كوا يبسل لها تذكر صدقك يقول الكامدة كوا يسكت دينا كمان نقط ده أركت ما بهاينه بل نيد هذا مرر بدن وإنه يجارته الله يعني محمد أرك يا أركوي لكن يا أركذا متبع خلده الله مركون النبي محمد صباح حتى عن ضدك النور كم من نقول لها هدهن لكن النبي محمد حتى أركل هذا حين الصحابة ذا يدين تابعي يا سركي إنك تابعي وحولي هي ولو هدي عن نور الله الله هدي عن ضدك الله صوت دري ولا كل ما كم من نقول لها كسرني وصاح هدهن إن بدن با أركتي وقالوا ذي إن بدن با أركتي وقالوا ذي هذا دوغان له يحل جا وصباحي إن الرمية عليسك أي عادة يا دقنك يا بلشة كذا حلاده هذا كما ده حد ذكرته أنت تشوف تحل جا إن أتقال نقول له أدو دينتي وعقد دقتي ودول كل السفية بعتمده بلا قال نقول له هيد بده حل جا شوفت فهذا مرك إن أركت إن أتعلن له هيديو امتحان كائنات كدير له هيد وكلا الله إن كنت تعمل لقى الدنيا الله يا نبي محمد أرك إله مرة أرك لها نن أركي أيام بدنا لكن تعلفت هذا وسواس إنه يسوي بده شماعة ومذتوش بحدا وقع السجى اعتراض نبى تشين يا شيطان هالدوار كنا بحدا أركي وفسرا بدنا بحير إنه بحدا حال أركي كسر حالي ما شاء الله وات في عمت هاي بنا محمد الشيطان يسوي كيسية بالتلمان كسر نين بدو قاوم بالتلمان وكان بحد معه كل كان عاد كسر بحد معه marka inay maxabada lafteedu
inay awhaam iyo waswaas intay kugu noqoto xataa jin iyo shaydaan hadduu kuu yimaado aad fasirata nebi maxamed inuu yahay iyada meesha kuma jirta sala allahu alayh waalihi wasalam aragtida la tamaninayo waa aragtidii saxda ahayd wey oo tilmaantiisii iyo sifaadkiisii iyo wixii sunnadiisii iyo hadyigiisii iyo shamaaishiisa lagu yaqiinay ah taa inaad ku tamanid in aragto oo haddaad soo jeed ku arki weydo ilaahay inuu kugu tuso hurdada inuu kugu tusiyo riyada mid baa idiin sheegi laakiin caalamulhindi haddaad dhex tagtaan is-ilaaliya nebi maxamed wuu dhintay jacaylkii nabiga guluwiga galay waxaa ka mid aan tilmaami doono nebi maxamed wuu dhintay lama dhihi karo ninkii dhintay wuu dhintay dheh waa gaal rag baa madaxa la dakray nebi maxamed wuu dhintay intay dheheen war gaalka dila la yidhi qaarna hadda nebi maxamed ka soo kala kacno jiiradaasaan kula sheekaysanayay buu ku leehay waxaa ka daba faaideen makhaayadda hebel meesha luuqaa wada fadhiisanay jacaylka nabiga xasan slam haddaba aragtidiisu waxa inaga inoo soo haray waa laba in ilaahay uu riyo kugu tuso riyo sax oo sifaadkiisa iyo shamaaishiisa u leeyahay iyo inaad tamanida aakhare xisbigiisa arkay inaad ka mid noqoto laakiin hadda nolol bannaan intaad ku aragtay inaad la sheekaysatahay waa shaydaan waxaad aragtay nebi maxamed maad arag sal alla alayh wasalam oo wuxuu leeyahy meeshaas igula kulmayo markay saxaabadu isleynayeen buusan u soo bixin adu qiimaynta lag baad leedahay si uu kugu soo baxee luuqyada islii iyo qarfaha soomaaliya markuu kuugu imanayo saxaabadiisii oo madiina dagaal ka socda oo maka la duqaynayo usan u soo bixin adiga wuxuu kugu soo baxayaa waa waxa la yaab leh bilaal radiallahu canhu ardaahu waa kii nabiga muadinka u ahaan jiray nabigii baa dhintay sal ly slam madiinana muadin buu kasii ahaa wuu adkaysan waaye waayo markuu masaajidka yimaado guryihii nabigu arki isagii buu xasuusan ma adaami karo adaankii buu adaami ashhadu anna muxamadan rasul magaciisa markuu soo gaaro bay oohinaya ilina jiq isxiri hadalkaa ku xirmi wuxuu yidhi mayo meeshan ma joogi karee waan isaga tegi wuu ka tegay oo shaam buu iska aaday mudduu iska maqnaa waadan buu soo maray madiina markuu soo galay baa waxaa la yidhi nimaan adi ahayn aadaami maayo bilaal baa yimid soo maaha nin kale masaajidka ka aadaami maayo aadaankii buu bilaabay markuu shahaadateynka qaybtii dambe soo maray jiq hadalkii waa ku xirmay macnaa xasuustii nabiga alayh salaam baa jiqa oo xirtay gabadh muslimiinta saxaabiyaadka ka mid ahayd baa maalin waxaa soo booqday nabigu uu booqan jiray baa abubakar iyo cumar baa u yimid markay u yimaadeen bay soo dhaweysay gabadhii way iska oyday radi allahu canha ardaha cumar iyo abubakar waxay yidhaahdeen waxaad noo sheegtaa waxaad la oyday haddayna qabatana waa nu ooy noo sheeg waxay tihi nabiga waxay ooyinta ka keenayna sheekadaa nabiga martay sal ly slam waxay tihi isagoo uma ooyin dhimasho de meel ka fiican buu aaday laakiin waxaan u ooyey waxyigii baa istaagay markuu dhintay sala allahu alayh alih wasalam marka jacaylka nabigu markii marar badan siiradiisii iyo taariikhdiisii ku soo marto waa in tamaniga iyo jacaylku mararka qaarkood aad naftaada xakameyn weyda wey laakiin waa inayna xuduudda sharciga inaad ka gudubto kugu xambaarin oo tii hore mutaabacadii baa weli kuu taagan jidkiisa inaad raacdo waxaa ka mid oo lagaa doonayaa nabiga jacaylkiisa astaamaha inay kaa muuqdaan la doonayo aalubeytkiisa inaad jeclaato ood saxaabadiisii jeclaato oo dadkii diintiisii usoo gargaaray aad jeclaato oo hadyigoodii aad raacdo oo say nabiga alay slam jacaylkiisii u mataleen aad u matasho waana marka aynu leenahay hadyigii salafu saalix ha la raaco hadyigii saxaabada ha la raaco say diintan ugu dhaqmeen ha loogu dhaqmo iyagaa nabiga la noola casab iyagaana inaga jeclaa iyagaana yaqiinay jacaylka nabiga sida loo matalay camal loogu bedelo sidee bay nabiga jacaylkiisii u mataleen inaan samayno wey laakiin hadday noqoto sidii abshir bacdallah u naxariista uu sheegay wuxuu yidhi afar xaalo oy culimmadii qabto caamada u dhiibtay oo ceebu ku idlaatay oo cadho ilaahay ah oo caado jaahili ah baa ii cuntabi weyday waxaa ka mid ahaa inuu yidhi carshiga kursiga rabbaalahoo lagu ciseeyaay markuu xoogay soo waday wuxuu yidhi cabdilqaadir wuxuu leeyahay ii cuntabi waayey adduunkan iyo aakhirana cabdilqaadir jilaani la siinayo goortuu yeeshay iyo meeshu waxaan ku yeeshay cuntabi weyday haata waxaan ujeedadan ka leeyahay taame wuxuu yidhi markii dambe
cumar bin alkhataab sidiiq cuhmaan cali abi aalib cabdullaahiyaday dhaleen iyo raggii diinta soo curiyey cilmi aynan baranoo waxaa jira culimmadii sheegtay baa magac ilaahay way cuntay weydi cilmi aan salafkii iyo saxaabadii laga soo gaarin waa magac ilaahay oo calooshi gadal loo liqay bay cuntay weydi cilmi kasta oo nabiga jacaylkiisa iyo mutaabacadiisa waa inaad aalkiisii iyo saxaabadiisii iyo dadkii inaga yaqiinay ee la noolaa ee jacaylkiisii camal ahaan u matalay iyagina waa inaad jeclaato say u mataleenna waa inaad kaga dayataa axaadiistii bay fasireen aayaadkii bay fasireen qabrigiisa calayhi salaam nabigu intuu noolaa qabri ma lahayn markuu dhintay qabri yeeshay iyagaa qabrigiisii joogay maxay samayn jireen ma qabriga isku tirtiri jireen ama gidaarka isku xoqi jireen maya jacayl maaha intaas taa way kala dagaalami jireen oo waxay u arki jireen inay mutaabacada raacitaanka diintiisii asaaska ahayd ka hor imanayso ma nabigay baryi jireen nabiyo umay dhihi jireen maya ma gacanta noo soo saaraan ku salaanay dhihi jireen maya waxaasoo dhan sheeko gadaal ka bilaabatay wey waa maxabada bugtaa weeye beenta marka waa taan idin lahaa weeye diinta faalsada haddayna kala dagaalami wax inoo soo hadhi maayo waxaan bugta ee faalsada waa bidace inaan kala dagaalanno intaana masalada haddaan kaga gudbo masalada saddexaad waxaan u gudbayaa adaankii baa la gaaray waxaynu ka hadlaynaa maxabadii haddii ay sidaas tahay astaamahaana leedahay qiimahaana leedahay sidee baan uga shaqayn karaa nebi maxamed inaan jeclaada sal ly slam ama xadda jacaylka ii jooga aan kor ugu qaado maxaa igu caawin kara in jacaylka nabiga calayhi salaatu wasalaam meel weyn qalbigay ka gaaro in astaamaha iyo calaamadihii jacaylku ay si caadiya iiga muuqan karaan amaan si caadiya u fulin karo wax waliba oo midho kastoo baxa waa la beeraa wax kasta oo samaysmana dadaal buu u baahan yahay lagu bixiyey ee dariiqyo loo maro waxaan leenahay waxyaabaha ku caawin kara waxaa ka mid a in badan inaad siirada nabiga akhrida sala allahu alayh waali wasalam ilmahana yarida lagu baro oo ilmaha sheekooyinka halkuu tom and jerry daawan lahaa ee dhagaysan lahaa maantao dhan tom iyo jerry sheekadoodu ma dhammaato carruurteennii guryaha markaan maro xaafadaha markaad marto mar lagu marti qaada fadhiga dee waxbaa isaga yaallo waxbaa meelahan carruurtu waxay daawadaan badana meelaha fadhiga lagama waayo markaad fiiriso in badan tom and jerry baa u yaalla tom and jerry mataqaana waxaa kaloo yaalla filan ay aada u daawadaan yaryarku ay jecel yihiin oo king lion la yidhaahdo baa guryihii ka buuxa de waa libaaxo aabihii intii la dilay baa isagoo yar boqortooyadii laga dhacay oo dib buu ka soo weynaanayaayo boqortooyadu soo dhacsanayaa nimankii soo koriyay buu afgambinayaayo sheekadaas iyo kaartoonadan nabiga alay slam ilmihii yaraanta in la cabsiiyo nabiga maqaamkiisa iyo jacaylkiisa iyo siiradiisa oo yarida lagu xifdisiiyo halkuu kooxa banooni iyo fulaan iyo fulaan iyo kooxebel iyo kooxebel iyo xulka ingiriis iyo talyaani iyo brazil iyo uu baran lahaa iyo intii john iyo michael la bari lahaa in la baro nabiga calay salatu salaam iyo ayaamtiisii iyo siduu ahaan jiray ilmo yaroo lagu tarbiyeeyey baan tusaale idin siin gabadh soomaaliya oo gaalowday waad maqasheen ayaan xirsi la yidhaha anagu ayaan daran baan u bixinay nin filimada sameeyaa filin la jilay gabadh qaawan oo faataxa hor laabta kaga qoran tahay iyo dhabarka oo salaad tukanaysa qisada waad maqasheen maan malayn ninkii wiil baa dilay laakiin waxaan idhi haddii wax la dilayo ama waa la iska daayaa ama sidaasa wax loo hubsadaa maalin barqacad ah magaalada bartankeeda caasimadda ahayd buu muddu ilaashanaye bastooladna wuu soo qaatay bilaabo intaa la-egna waa soo qaatay wiilkii ninkii oo socduu dabagalay wuu dhaafay laba baaskiil bay wataan waa ka hor yimid oo baashii uula baxay waa ku dhuftay waa ku celiyey waa ku celiyey 3 markuu ku dhuftay buu dhacay 2 kale u raaciyey 5 markuu kaga dhigay bashiisu waa xirta waa gashaday intuu bilaawii la soo baxay buu bireeyay oo gowracay magaaladii dhan baa daawanaysa
markaasuu intuu bilaawayna kor saaroo mindiyar haddana la soo baxay oo waraaquu qoray dul saaray buu musbaar uga dhigay markaasuu intuu qamiiska sii daystay wuu ku dul shanlaystay oo cadarna isku buufiyey markaasuu meel beer iska galay ninkiibaa aftibaa maxalushaahidkayga aftibaa magaaladii journalistihii iyo videogiibaa ciyaalkii wareysteen marka waxay ugu jaab badnaa 2 wiil mid 10 jir meelahaasoo ahaa midna 14 jir buu ahaa see loo kala weyey laakiin loo kala siyaasad badan kii 10 jirkaa bay weydiiyeen ka warran ninkii la dilay marka ninku aad buu nabiga iyo diinta u caayi jiray joornaalada iyo wax jinnigu ku qori jiray kii 10 jirkaa markii la weydiiyey wuxuu yidhi stupid buu ahaa isaga af dheeraa buu yidhi ilmahan yarkii waxaas ma banaanbu ka keenay mise gurigu ka soo baqlay gurigaa lagu baray kii 14 jirkaa way u yimaadeen ka warran bay ahayd arrintaa khalad bay ahayd waxaas ma fiicna inuu ninkaas sameeyo ninka saa u dilo adiga waxaa la yidhi taa intaa iska dayso qalbiga maxaa ka dareemaysaa baa la yidhi qalbiga waan kaga faraxsanahay buu yidhi qalbiga waan kaga faraxsanahay ninkan yarka marka waxaa keliya wuxuu ninkan kaga yar caqli roonaa waddan baa la joogaa gaalaa lagu dhex nool yahay qawaaniin baa jirta hadhow baa lagu qabsanoo maxkamadii waxbaa lagu geyn way ficneen haddaad tiraahdo intii wuxuu leeyahay dee qaanuun baa waddanka ka jiro waxaan khalad buu ahaa laakiin urka sababaha markii la sii weydiiyey waa kaga faraxsanahay markaas waxay dhahan ciyaalka saaleh ee waddankan ku dhashay guryaha waxaan loogu akhriyay bay yidhahdeen halka maxalu shaahidkan raba halkaa wey ilmaha guriga waxbaa lagu cabsiya waa laga dhaadhiciyaa hadba waxaad barta wey haddaad Tom and Jerry bartana waa Tom and Jerry ilmahaagu haddii ilmahaaga siiradii nabiga iyo aad bartana waa siiradii nabiga sallallahu alayhi wasallam walidaalika salafku waxay dhihi jireen علموا أبناءكم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات كنبي سيرتي سيلمه النبرة هذه يقول إن بدن مركز أخرده واحد بدن أو تعايلة كوكرية واحد كفر حيسد غزوات كيسي قوله وجاري خشر قلدي وكب حسنية واحد لو ذا جيسا إن أتكن حده مرضبة دي لوم مليجي شر قلدي تعايل قلبك على واقوب بدن أنت بدي سوا أنت آخر إنسان نوفلدا توفلدا آخر إنسان iyo tuugada buugtoodii John Criyamiti aad akhriyaysan meelaha dariiqada ka buuxa akhriya siirada nabiga sallallahu alayhi wa sallam garaan dhalinyarada aan la hadlaya hebel wuxuu qorayo buugi hebel iyo kooxbla buugta laga qorayo markaan meelaha mara buugta toofalada cusub aan fiirfiiriya waxaan aad akhriyaysan ninkii tuugi hebel iyo fanaankii hebel wuxuu qorayo iska daaya waxba ka faa'iideeysan waqasan meesha tagay saasan u heesay intaas timid iyo buug waxa akhriyaysan oo kaleeto buug jacayl ciyaalka qaarka loo diidana qaar baa bustaha intay isku dadaan oo hoosta toosh ka shitaan bay meesha ka akhriyaan waxaad iska daysaan siirada nabiga akhriya wixii kale adduunka idin anfacaya maahane arinta labaadi wax badan xasuusnow jacaylka nabiga alayhi salaam adduuniya aakhiraba ajir baad ka heli dambigaaga lagu dhaafi hami baa lagaaga qaadi arinta wax badan xasuusnow oo kugu caawinaysa jacaylkiisa inaad kor u qaado waxaa kaloo xasuusataa sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam inaad weynayso ood ku dadaasho hadal nabigu yiri inaadan daba marin sallallahu alayhi wasallam markaad magaca nabiga maqasho dhagtaadu inay istaagto ibn Abbas wuxuu leeyahay intaan dadku wax isdaba mariska keenin waxaan ahaan jirnay haddaan maqla nabiga yiri dhagtadana kor baan u qaadi jirnay waxa la sheegay in intaan aamusnaan dhageysan jiray marba nabiga yiri sallallahu alayhi wasallam laakiin markaad beenta naga dhaxdarteen ninkaan naqaaneen aaminsannahay markuu nabiga yiri yiraahdo ninkaasaan dhageysanaa kuwa kale waxaan ka cabsanaa waxaan jirin qoorta inay noo geliyaan waa in nabiga magaciisa sallallahu alayhi sunnadiisa marka la sheego aad ugu dadaasho way waa inaad ixtiraamto way waa inay qadarin badan aad u hayso waxaan intaad ku dartaa oo kaleeto dadka jecel ee sunnadiisa difaaca inaad jeclaatood kullu xidhato way kuwaan sunna nabiga dan kala hayn diinta sarraacitaankeedana waxba ku falaynin waxba durbaan baan iyo damdam yuusan ku garaacin masalada ugu dambaysan ku soo gabagabeynaya qaybtan waxa weeye jacaylka nabiga calayhi salaam qolyana waa ka gaabiyeen kuwa ha noqon kuwana waa ka badbadiyeen ee kuwaana ha noqon xuduudii sharciga ku ilaali kuwa waa ka gaabiyeen oo maanta oo dhan nabiga hadii agtooda lagu sheegayo sallallahu alayhi wasallam malaha maanta dhan ay wadaan sheegno saasa u soo wada jeedaan inaad wada maqantiin bad moodaan
sala allahu alayh wasalam inteen leeg baad dhahdaa albakhiilu man dukirtu cindahu bakhayl waxaa la yidhahdaa nin laygu agxusay falam yusalli calaya aan igu saliyin saa nabiga alay sl slam bakhaylnimadu min aljafaa'i wey goy nabiga iyo ka gaabinaya gaboodfal xaqiisii wey waxaa kaloo ka mida diintiisa inaad bidac ku darto ood uba malayso diintiisu inay bidac u baahan tahay oo diintu macnaheedu yahay ma dhammaystirna taana baabulbidca baan kaga soo hadalnay waxaa ka mid a axaadiistiisi inaadan aqbalin oodan u hoggaansamin sunnadiisii laakiin masalada aadka ii khusaysa mawduucayga xiriirka la leh waa inaad ka badbadisa weeye jacaylka nabiga alayh isalatu wasalaam jacaylka nabiga oo laga badbadiyo suwar badan buu ku soo baxaa in nabiga maqaamkiisii kor looga qaado oo maqaam rabbi iyo ilaah laga dhigo tii nasaara ay samaysay oo kaleeto oo nabigu uhi laa tutruunii kamaa atrat inasaara bna maryam waryaa hayga badbadinina oo maqaamkayga iyo darajadayda meelaan ahayn hay geynina nabigoo nool baa niman intay u yimaadeen alay slam waxay yidhahdeen maa shaa allahu washita wixii adiga iyo allah ad doontaan markaasuu yihi may saha dhihin ajacaltanii lilaahi niddan ma ilaahay mid la barbar dhigaad maanta iga dhigteen bal maa shaa allahu waxdah ilaahay wuxuu keligii wuxuu doonaa soconaya qaarna wuxuu ku yidhi waxaad tidhaahdaa maa shaa allahu uma shita kadibna adiga oo maqaamka uluuhiyada hay garab gelinina halkaa hay gaarsiinina wuu ka digay sal slam laakiin maqaamululuuhiyaan gaadhsiinay waxaynu gaarsiinay oo mawlidka la qaaday oon arki doonaa ilaahay lawxulmaxfuudka cilmigiisa ku yaalla nebi maxamed oo adaa siiyey faina min juudika adunyaa wadaratiha wa min culuumika cilmu lawxi waalqalami miimiyadii buusiri waxaa weeye mawliidka kitaabkay ku taalla waa arki doonaa ilaahay adduunye iyo aakharana deeqaad nebi maxamed oo bixisay weeye allah looma tirin cilmiga ilaahay lawxulmaxfuudkana adigaaba siiyey haddii cilmiga ilaahay baa bixiye markaan ninaana aakhariya adduunna waa deeq alle haddaad allah aduu ka saarto waa deeq nebi maxamed oo cilmiga bixiye aad tiraahdo soo allahnimo maadan geyn cer iyo dhulba nebi maxamed baa maamulo oo sayid oo maamulo ka ah in la yidhaahdana isla taa lafteeda ay ku taallaa muxamadun sayid lkownayni wاthaqalayni min curbin wa min cajami labada kown ee kan sare iyo kan hoosaba isagaa sayid iyo maamulo ka ah jin iyo insina isagaa maamulo oo allah maxaa usoo haray halkaa inaad nebi maxamed gaarsiiso waa tuu ka digo huluwiga iyo ka badbadiska wey taa iska ilaali marka wax badanna waxaan idin taabsiin doonaa qasaa'idka iyo kutubtan mawliidka la akriyo waxaasaa halkaa ka haya in nebi maxamed ilaahya baa halkaa ka haysa bal nuurka ilaahay in laga abuuray oo ilaahay qayb ka mida uu yahay baan idinka tusi doona idin taabsiin doonaa waxaan la akriyay carabina idan fahmayn waa idin fasiri doonaa insha allahu tacaala waxaa huluwiga iska ilaali waxaa kalood iska ilaalisaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam in ammaantiisa iyo kabadbadiskiisa iyo ammaantiisa aada gaarsiiso wuxuu yahay inaad inkirto daa'ifadan dariiqooyinkan hindiga ka mid yahe baryaweliyada la yidhaahdo ee duubka cagaaran xirata duubka cagaaran haddii afrikada galbeed la joogo waa astaan tiijaaniye wey haddii hindi la gaarana waa baryaweliyada wey haddii aad turkiya tagtana waa naqshabandiye wey baryaweliyada waxay leeyihiin nebi maxamed ma dhiman wuu nool yahay innagana mawliidkeenna waxaa ku qoran nebi maxamed intaasoo milyan oo qof buu noqdaa habeenka mawliidka koow qolo walboo meel durbaan ka shidatana wuu u tagaa wuu dhex fadhiistaa somaydaan arag miis kursi la dhigoo bannaan iyo meel maxalulqiyaame in la yidhaahdo maxalulqiyaamida nabigii baa soo gelaya wey kursigaana isagaa fadhiisanaya wey afartii wadaadee meel duub durbaantumataba intuu u yimaado in saxaabadiisiina uu iman waayo se wax la yaab lama midda kale nabigu markuu maka joogayna makuu ku ekaa
markuu madiina joogayna madiina ku ekaa magaalada Nairobi baa wuxuu leeyahay 200 oo meelood buu kursi ku fadhiyaa waa tacaduday Soomaaliyeed waa quluwi jacaylkiisii bay ka mid tahay baa la yiri saa hadaadan dhihin nabiga ma jeclid oo minaan been sheega nabiga jacaylkiisa nabigi waa nabi maxamed waa dhintay kaleey salaatu wassalaam inuu dhintayna maqaam iyo fadli bay u tahay rafiiqul a'la waana isaga inta la dooransiiyay doortay isagana sheegay ma dhimanin intii la yiri baa kuwa Soomaaliya ba madaxa laga garaacay uu dhintay intee ka dhaheen meel nimanka baryooriyada joogan nimankana saan noo galay waxa war taayfada ma yihiin ka sadhan ha war magaciin jiriye isaga carraan ku dhig meesha madaxa idinka quwaaxin qulubiga waxa kale oo kamida nabiga kaleey salaatu wassalaam in lagu amaano wax muharramaada xaflad mawlid baa la qaban rag iyo dumarkii baa saa isugu dhaxyaacaya ikhtilaad muharrama ka dhacaya gaal ba xafladii nabi maxamed jacaylkiisa ka khudbaynaya sawirada bigta la isku hayaa geel baa la saaran yahay magaalada dariiqa lagu wareegaya si inaga meesha sar hore ka dhacday jacaylka nabiga saasa la mideed ta waxa in badan faahfaahin doona tada marka aan tagay quluwiga waxyaabaha jacaylka nabiga kamid ahayn way ee xuduudii sharciga aan ku koobnaynba dambi iyo macsiya la sameeynaya jacayl nabina waa laga dhigayaa waxyaabaha saa darteed nabiga kaleey salaam laba arimood inaad ku dadaasho way marka nabiga kow waa bashar malagna maaha rabbina maaha inta uu bashar yahay ee basharnimadu ay keenaysa waaya oo maqaamka uluuhiyada saas uga sokeeya dhinaca kale basharkii uu ugu fadli badan yahay oo ilaahi maqaam iyo darajo nubuwo geeyayo basharkan kale ixtiraamka iyo mutaabacada kula mid maaha maqaam uluuhiyana ha geynin anigu ila mid yaho waxyama dheerana ha dhihin labada arimood ku dadaal sadarteed ba waxaynu leenahay maxabada nabiga kaleey salaatu wassalaam quluwi iyo bidc baa la galiyay waxaan maxabba jacaylkiisii ahayna maxabba laga dhigay tii jacaylkiisii ahaydna waa laga saaray in diintiisa la raaco oo hadigiisa lagu dhaqmo oo isaga aqwaashiisa afcaashiisa shariicadii looga dambeeyana bidca laga dhigay in la heeso oo durbaana la tumo oo rag iyo dumar la isdhaxyaaciyo oo sawirro iyo gaala la keeno oo isagii rabbi iyo uluuhiye la gaarsiiyo taana waxa laga dhigay jacaylkii nabiga intaba jacaylka nabigu wuxuu keenayaa in dab la qabatiyo la gubo oo ikhtilaadka la kala cayriyo oo munaasabada nabiga jacaylkiisa gaalka laga cayriyo oo heesaha laga mamnuuco oo nubuwada maqaamkeedii loo daayo oo aan ilaahnimo la gaarsiinin diintiisa tawxiidkiisa si loo xifdiyo wixii diintiisu ay keenaysayna waxa rag baa waxay kaaga dhigeen bidco weey oo wuxuu yiri xadrada waxaan u guulguulayaa waxaan ku guulguulayaa maxay bidcadan ku guulguulayaanay soo badanay bidcadu maxay tahay daliilkan labadan sano waa dareensaday labadan sano maxaa u daliila diinta xaqay kaga taala nabigu xaqay ku yiri sallallahu alayhi wasallam mid baa wuxuu nagu yiri sheekh culimadayda waxaan ka maqli jirnay bidcadu ayad iyo xadiis beedin keedi doonaane minhaajka kula dagaalamo oo ayad iyo xadiis la keenay bidca noqotay oo maxaa diin noqon ayad iyo xadiis la keenay haday dambi noqoto maxaa diin noqon mushkiladu marka waxay bismillaah goortay dhaha booba kabihi nabi bay maraysaa nabiga kaleey salaam awwal shay mutaabaca ya raacitaan ba jacaylka asaas ah in yar hadaad ka baxdo waxaad samaysay baatil way jacayl nabi ma sallallahu alayhi wasallam awalkaas aan ku deereynaa insha Allah taala habeen dambe waxaan ka hadli doonaa mawlidka taariikhdiisa iyo damaashaadka la sameeyo iyo qiraa'o qasaa'idka iyo kutubta mawlidka baynu ka hadli doonaa hadii alla yiraahdo insha Allah taala habeenka ka sii dambeeyana wixii taa ka dhimanaadi iyo xukunkiisa aan ka hadli doonaa habeenna waxaan furi doonaa wixii su'aalaha hadii alla yiraahdo subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka